madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo xarunta madaxtooyada Jubbaland kula hadlayay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay maamul goboleedka Jubbaland oo muddooyinka ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa shaaca ka qaaday in xilligan uusan jirin gobol iyo degmo xor ah oo ka arrimiyo maamul goboleedka Jubbaland arrintaas oo ku nacnayay madaxweynaha Jubbaland in aan la heli karin gudoomiye gobol iyo mid degmo kormeer ku sameyn karo gobolka ama degmada xukuumaha iyo tuulooyinka ka agdhow waxaana madaxweynuhu sii raaciyay in gobolada iyo degmooyinka Jubbaland ay yihiin kuwa kala xiran oo aan la isu mari karin xilligan isla markaasina ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab waxaana uu yiri degmo xor ah ma jirto maanta Jubbaland hal degmo oo xor ah ma jirto waa taa degmada tuulooyinkeeda dhan gudoomiyaha degmadu uu wareegi karaya ma jirto hal degmo oo tuulooyinkooda Soomaaliya baadiida nimanku haystaan warimankan buundooyinkan aan ka soo xidhno inta kale waan iska xaqeen waa la lugeynaa waan daba gelinaa tabadoon iyo nina laga badan aan mid ku talagalo sidoo sheegay wasiirku gudoomiye gobol iyo degmo iyo tuulo iyo kul jaanka ciidanka aan ka dhigana gobolkan Jubbaland ama state-kan caasimaddiisina maanta gacanta shabaabka ku jirta inta kalena waxaan oran karaa haddii aan runta sheegay xorriyaddu way ku yartaa sababtoo akhyaar hadda gudoomiyaha gobolka gabo intuu baxo inuu xagga u baxo buurdho sii maro luuq intuu tabadoolo yimaado ceel wax soo maro baashi balaxa maro ceel waqti halka gabaaro kaga soo noqday waxaan malanayaa ma fududo arrinada adag wasiirka iyo karada Jubbaland oo sheegay Jubbaland waxay dambeysay halkan intii laga baxo aan jeel ma halkan in la tago sanaa Cabdullo Axmed la gaaro badada la tago sida adag marka waxaan ahay dawlad walba magaaladiisa ku dawlad leeyahay taqaan magaalada ay joogtay oo baahan tahay taas waxaan u baahanahay marka waa cadow yar oo xaqiiqahan haddaan inagu la nimaadno aan iska bixin karo dalkeena ay soo banaysan karaan laakiin ma garanayo laba qof ma waxa dhawarka loo saaray intii la gowracay cabsi badan baa ugu aawantay waxaasna raxmada deegtay haddaan soo shaarmo si ku yaalaan taawaan iska deynaa nimanka waan iska celinaa dilahay annaga cidna isku haleeyay marna inaan isku tashano sida wasiirku sheegay taliya urur ilaa taliya guud inta noqonaysa tanina isqaybina aan danteena qabsan inagu aan isku xisaabtan aan isku tashano madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Jubbaland kula dardaarmay in ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhanaha ururka al-shabaab oo ay ku xoreysanayaan guud ahaan gobolada iyo degmooyinka maamul goboleedka Jubbaland iyo sidii la isugu furi lahaa gobolada waxaana uu sii raaciyay in aysan sugan ciidamo shisheeye balse ay iyagu tilaabo qaadaan waxaana uu yiri mar kale loo diyaar garoobo ciidanimo oo aan difaac iyo weerar iyo inaan dagaalano aan ku talagalo xaraynta deegaanka maqalka duurka inaan nimanka daba galaan waa dardaaran haddii maanta laga hadlo la yiraahdo AMISOM iyo UN iyo yaa noo qaad horta weligeed ma laga joogaya intee leeg baa lagu joogi karaa halka Soomaaliya waa dadkii la yaqaan kuwa shabaabkii waa Soomaali waan iska celin karaa Soomaali dawladnimadeedii iyo ciidankeedii waxay ahayd waan garanaynaa waxaana kharibay waa qabiil ilaa haddana isagii aanu qabiilkii aanu qaran ugu gudbilaan askarteeni waa qabiil ka bixira maamulkiisa waa qabiil ka bixira wixii qabiil qorano seertana shalay waa loo waayay awoodeeray ciidan Soomaaliyeed wuxuu ahaana waa la yaqaan aan isku xisaabtano isku tashano halaha rasaasta iyo qoriga meel ka waayeen intaan isku xisaabtano deegaanadana aan isku xaraysano inaga dhulkeena banaysano gobolkeena iyo maqan iyo degmooyinka raacaan insha Allah waan inaga xaraysana inaga duulaanka qaaday cidii dan kale hayna soo raacdo markaas haddii la arko qofkii soo wax qabsanaya socdo cid walba way kugu darsanaysaa karax laakiin haddii adigu fadhido tiraado waxaan sugayaa in deegaanka laga xareeyo oo gacmaha la laabato inna meel kuuba qabanayo hadalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab iyo waliba degmooyin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo.